السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في الله مجعشين إناد كسبتان أجراءات فربضان مربطان إناد نغطان كوا إلهي سبحانه وتعالى أكتيس بلان لوغا قاضو إني هيليان أجرا مركا فربضان مربطا إناد كمد نغطو كوا إلهي سبحانه وتعالى أكتيس أجرا فربضان لغسيو هذا هذه جوابت هاي sideedan camal ee aan kuu sheegaya mid ka mida shaqayso waxaadna heli doontaa ballanqaadna ah inaad ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa ajir aada u fara badan aad ka heli doonto haddaba camalka ugu horeeya ee kamid ah acmaasha lagu kasbanayay ujuurta aadka u faraha badan waxaa weeye alqitaalu fi sabiili illah qofka mu'minka inuu ilaahay jidkiisa u dagaalamo dagaalka ma aha kan qorigoo keliya waxaa la rabaa inuu xoogiisa cilmigiisa iyo markaa xoolihiisa intaba jidka ilaahay subxaanahu watacaala uu kula dagaalamo inuu diinta u gargaaro inuu markaa ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa hiil iyo hooba markaa qofka uu markaa ula garab istaaga loo baahanya ilaahay subxaanahu watacaala isagoo arrintaa cadaynayana wuxuu yidhi waman yuqaatil fi sabiili illahi fayuqtal aw yaglib fasawfa nu'tiihi ajran cadiima qofka ilaahay subxaanahu watacaala jidkiisa u dagaalama ee markaa la dila ama laga adkaadaba qofkaasi labada goorba wuxuu helayaa ajir aada u fara badan baan goor damba siin doonaa buu rabbi subxaanahu watacaala yidhi haddaba camalka labaad ee kamid ah acmaasha lagu heli karo markaa ujuurta aadka u faraha badan ee ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa yaalla ayaa wuxuu yahay al-islaaxu bayna annaas haddii aad dadka heshiisiiso ilaahay agtiisa ajir aada u fara badan oo qiyaasna lahayn tirana lahayn xadna lahayn buu ilaahay ku siinayaa haddaba ilaahay subxaanahu watacaala isagoo nagu dhiirigelinaya nagu boorinaya inaan noqono kuwa dadka islaaxiya si aan ujuurta aadka u faraha badan ee rabbi subxaanahu watacaala agtiisa yaalla aan u helno ayaa ilaahay isagoo nagu waadinaya wuxuu leeyahay laa khayra fi kathiirin min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika bitigaaa mardaati illahi fasawfa nu'tiihi ajran cadiima ilaahay wuxuu leeyahay khayr kuma jiro dadka intooda badan macnaha wadahadalkooda iyo markaa sheekadooda iyo markaa fadhi ku-dirirkooda iyo wadahadalkooda iyo faqooda markaa mid khayr le ma aha haddaan laysku farin ama aan hadalkaasi ama shirkaasi aan markaa lagu soo hadal qaadin ama aan laysku dhiirigelin arrimahan arrinta koowaad waxay tahay man amara bisadaqa ilaa uu noqdo kulankaasi kulan sadaqa laysku farayo aw macruufin ama wanaag laysku farayo aw islaaxin bayna annaas dadka in la heshiisiiyo oo wanaagooda laga shaqeeyo oo oday la noqdo oday nabadeed la noqdo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay qofkii arrimaha saddexdee lasoo sheegay marka hadal meel u fariisto ka hadla ama kulankaasi uu noqdo kulan saddexda arrin looga hadlayo ilaahay wuxuu leeyahay waman yafcal dalika bitigaaa mardaati illah adoo sumcad raadsanaya ma aha adoo ilaahay raali aansha ka raba ajirna ka raba ilaahay wuxuu leeyahay qofkii marka arrintaas sameeyay isagoo ilaahay ajir ka goobaya fasawfa nu'tiihi ajran cadiima goor dambe waxaan siin doonaa buu rabbi subxaanahu watacaala yidhi ajir markaa aada u fara badan oo xad iyo qiyaas midna lahayn haddaba qodobka camalka saddexaad ee kamid ah acmaasha lagu heli karo ujuurta aadka u faraha badan waxa weeye alcamalu saalixu maca aliimaan qofka inuu camal wanaagsan shaqaysto isagoo mu'min ah isagoo rumaysan camalkan abaalgudkiisa iyo abaalmarintiisa isagoo rumaysan camalkan inuu ilaahay faray isagoo rumaysan camalkan inuu ilaahay ka abaalmarinayo ilahay isagoo arrintaa nagu dhiirigelinaya wuxuu leeyahay إلهي وحليه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيما إلهي وحو بلان قاضي كو مركا مؤمنين تا عملك وناكسن شقيستي مركا إذنك إذا مؤمنين هاي مغفرة دافد أجر عظيما أجر آد فربنا برب سبحانه وتعالى يري هذا عملك أفراد kamid ah acmaasha lagu kasbanayo ujuurta aadka u faraha badan rabbi subxaanahu watacaala agtiisa ayaa la waxay tahay al-ixsaanu can izawja in xaaska loo samafalo oo loo wanaag sameeyo in xaasaska loo wanaag sameeyo oo markaa wanaag iyo xumaan kasta ay sameeyaan wanaag loo qaato ilaahay subxaanahu watacaala isagoo nagu dhiirigelinaya arrintaa wuxuu leeyahay fa ina allaha acadda lilmuxsinaati minkuna ajran cadiima ilaahay wuxuu idin diyaariyey dadow
ama ragow kuwa dumarkooda u asxaan sameeya idin ka mida mu'miniin yahay ajir aada u fara badan buu rabbi subxaanahu watacaala ajir aada u fara badan buu rabbi subxaanahu watacaala u diyaariyay oo agtiisa ah. haddaba camalka shanaad ee kamid ah acmaasha lagu kasbanaya ujuurta aadka u faraha badan rabbi subxaanahu watacaala agtiisa yaallaa wuxuu yahay taqwa allah, in ilaahay laga baqdo, in ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisa in ilaahay laga baqdo oo adiga aada ilaahay ka baqato. haddaba haddaad ilaahay ka baqato maxaad abaalmarin helaysaa? ilahay wuxuu leey waman yattaqi illaha yukafir canhu sayi'aatihi wayucdim lahu ajra. qofkii ilaahay ka baqda ee ilaahay subxaanahu watacaala waman yattaqi illaha yukafir canhu sayi'aatihi, ilaahay wuxuu abaalmarin ooga dhigaya inuu dunuubtiisa oo dhan dhaafo, ka weyn iyo midka yarba. dunuubta waaweyn iyo dunuubta yaryar buu rabbi udhaafaya. wayucdim lahu, rabbina wuxuu u badinaya ajra, wayucdim lahu ajra, ilahay ajirkiisana uu badinaya u kordhinaya rabbi subxaanahu watacaala. haddaba camalka lixaad wuxuu yahay ee kamid ah acmaasha lagu kasban karo in lagu helo acmaasha lagu heli karo ajuurta aada u fara badan ama ujuurta aadka u faraha badan ee rabbi subxaanahu watacaala agtiisa yaalla ayaa wuxuu yahay asabr, in markaa qofka uu noqdo qof sabar badan. dhibaato kastoo loo geysto inuu ku sabraa qofka loo baahayay, xanuun kastoo ku dhaco inuu ku sabraa loo baahayay, bala kasta iyo markaa aafo kastoo ku timaada inuu ku sabraa loo baahayay, qadar walbo ilaahay u qadaray hadday ku dhacdo qofka inuu ku sabraa loo baahayay. kuwa sabarka markaa badsada ee markaa naftooda sabarsiiya ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu abaalmarin ooga dhigay waladiina sabaruu ila aladiina sabaruu wacamiluu الصaalixaati ulaaئika lahum maqfirat waajru kabiir. kuwa markaa sabray miya ee camal wanaagsan la shaqaysta ilaahay wuxuu leeyahay kuwaasi waxay leeyihiin markaa dambi dhaaf iyo ajir aada u weyn oo u badan bay ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa ka helayaan. haddaba midda u dambeysa camalka u dambeeya kamid ah acmaasha ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa ajiro aada u fara badan looga heli karo waxay tahay makhaafat ullah, in ilaahay subxaanahu watacaala laga cabsado, in ilaahay subxaanahu watacaala aada adiga ka baqato oo cabsida ilaahay ee qalbiga kuu gasho. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay fi ladiina aamanuu minkum waanfaquu lahum ajrun kabiir. cafwan camalka todobaad wuxuu yahay in aladiina yakshawna rabbahum bilgayb lahum maqfirat waajrun kabiir. ilaahay subxaanahu watacaala kuwa rabbigooda ka baqday qeyb, macnaha kuwa rabbigooda isagoo maqan ka baqday oo qeyb ahaan ayagoo ilaahay subxaanahu watacaala arkin, ilaahay la kulmin, kuwa ka baqday ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leey lahum kuwaasi waxay leeyihiin maqfiratun dambi dhaaf iyo ajrun kabiir, iyo ajir aada u weyn bay leeyihiin. haddaba camalka u dambeeya camalka sideedaad ah ee markaa lagu kasban karo acmaasha ee kamid ah acmaasha lagu kasban karo ajiro aada u fara badan in ilaahay agtiisa looga helo ayaa waxay tahay alinfaaqu fi sabiili illah. qofki inuu noqdo qof sadaqa badan, qof gacan furan ee markaa had iyo jeer ilaahay dartii wax u bixiya. qofkii markaa had iyo jeer noqdo qof gacan furan oo ilaahay dartii wax u bixiya abaalmarinadan buu helayaa siduu ilaahay kitaabkiisa ku cadeeyeyba. faladiina aamanuu minkum waanfaquu lahum ajrun kabiir. ilahay wuxuu leeyahy faladiina kuwii aamanuu minkum rumeeyey, ilaahay rumeeyey idinkana idin kamid ah, lahum waxay leeyihiin waanfaquu waxna bixiyey, lahum waxay leeyihiin maqfiratun dambi dhaaf iyo waajrun kabiir, iyo ajir aada u fara badan bay markaa leeyihiin. walaalka faa'iidaysta sideedan acmaal camal kamid ah haddaad kasbataan ama aada shaqaysataan waxaad ku helaysaan ujuur aada u fara badan iyo markaa ajiro aada u fara badan oo ilaahay agtiisa ah. haddaba haddaad jeceshahay inaad hesho ajiro aada u fara badan oo ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa markaa ah, waxaad samaysaa acmaasha sideed ah mid kamid a markaa samee, ilaahayna subxaanahu watacaala ajir buu ku siinayaa, weliba ajir aada u fara badan oo aan beegna lahayn, qiyaasna lahayn, tirana lahayn, xadna lahayn buu ilaahay subxaanahu watacaala ku siinaya. بارك الله فيكم كفائديستا سبسكرايب قرية شير قرية ولا الذي لو ذاك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.